dalka Imaaraadka Carabta ayaa qaaday tilaabo bareer ah oo runtii gafweyn ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya taasoo malaha ka qaraar go'aan kasta oo uu hore u qaatay waana isla sababtii uu Imaaraadku u burburiyay dalweynaha Suudaan ee la xiriirtay in qaab dhigmiirad ah loo dhaco dahabka iyo macdanta daleeyahay si xaaraan ahna deeto lagu gurto tii la adeegsanayo dabadhilifyo iyo calooshood u shaqaystayaal maxalli iyo caalamiba iskugu jira kaga daran hay'adda tilaabadan qaadaysa xitaa ma gaarsiisna heer dawladeed waxa iska leh ismaamulka ama Imaaraadda Dubai waana magaceeda la yiraahdaa wakaalada dekedaha Dubai ama Dubai Ports Authority DPA haddaba sida wax u dhacaan hay'adda Dubai Ports Authority ayaa imika soo saartay qoraal rasmi ah oo shirkado kale ku casuumayso inay soo dalbadaan qandaraasyo lagu baarayo macaadinta qaaliga ah ee Soomaaliya sida dahabka iyo macdanta buuraha calmadow ee gobolka Sanaag haddaba aynu yara iftiimino khaladaadka balbalaaran iyo gacan dhaafka ay samaysay hay'addan Dubai Ports Authority oo aanu ku soo koobnay ilaa 7 qodob oo cadcad kow marka horeba magaceeda ayaa xitaa ka horeeya midka hay'adda maxalliga ah ee tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ugu qaybsan maamulka Puntland oo lafteeda looba baahnayn waayo qodaalka kheyraadka dabiiciga ah waa hawl u dhowran dawladda federaalka Soomaaliya marka la macaamilayo dawladda qalaad taasoo dabcan hay'adda DPA u sawiraysa sidii mid iyadu maamusha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya laba hay'adda Dubai Ports Authority iyada ayaa casuumaysa shirkadka taasoo ah gacan dhaaf muuqda iyo xerataraar aan marna xaq u lahayn waayo iyadu ma laha dhulka iyo dalka macaadinta laga qodayo ama laga baarayo saddex dhanka faa'iidooyinka ay qabi doonaan shirkadka qandaraaska ku guuleysta ayaa waxa ku qoran 2 qodob oo ah in qandaraaska lagu dhaqi doono sharciga canshuur dhaafka ah ee suuqa xorta ah ee Dubai iyo in dhoofka sahayda uu raacayo habraac iyo dhabayow ay jideysay taasoo si fudud ka dhigan in Soomaaliya lagu dhaqayo sharciga Imaaraadka sidii inaan nahay dal ka tirsan ama ugu yaraan mustacmarad ugu jira Imaaraadka shan qandaraaslaha guuleysta wuxuu xaq gaar ah oo sahminad u yeelanaya blogyada la baarayo halkaan waliba laguma xusin wax ruqsad ah oo Soomaaliya lagaga baahan yahay la weydiistay ama ay bixisay yalkeeda taa bidaalkeeda qandaraasluhu waxa uu Imaaraadka ka helaya kaalmo dhanka kaabayaasha ah iyo in loo fududeeyo dhoofka macaadinta waa shakada ay dhalinyaradu dhihi jireen kaligaa dubo kaligaa daangeyso lix sida qoraalku u dhigan yahay doorkii dawladda federaalka Soomaaliya waxa buuxisay hay'adda DPA oo marka laga yimaado inay tahay mid heer maamul goboleed ah misna ah hay'ad qalaad oo aan marna xaq u lahayn doorkan ay isku urjinayso ay waraaqaha iyo habraacyada ka soo saarayso toddoba meesha qura ee magaca Soomaaliya oo ah dalka dhan ee macaadinta laga qodayo lagu xusay waa ciwaanka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah oo degan Garowe Puntland Soomaaliya haddaba ugu dambeyntii marka ay halka taagan tahay madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dalka u dhaaratay marar badanna muujisay inay damuqsanayaan marka uu Imaaraadku dalka faragelinayo haddii ay midan ka aamusaan waa jantaa rogan oo dalka kama jiraan dawlad iyo maamul looga dambeeyo oo u diyaar ah inay danihiisa ilaaliyaan xilkooda qaranna gutaane hala isdaba qabto maxamed xaaji hadal samay TV